KNN. nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midimiidaysay maahino si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan KNN shacab dile bajaad diide jidka xirte qarax bugtiye askari xume maamul xumo mas'uuliyad darro qarax xabad doora sumaysan amniya dawlad dhibatiisa u qaasa ayuu tiigsanayaaye tan guud yaa ka wakiila dadka taagtareeyee toaalaysana liitansa wax miyaan la tarayn aryaadhaha waa ogeedeenoo ayaantan jidadku waa xirraayeen ka kadibna bajaajle meelow mara waayayaa la yidhi lacagkeen intaan lacagta ka keenaa how yidhi luuqyadii xaafadahana waa la xidhay meelaan marana waa waayaye ka kadibna barbaarta igaarka soo dhex boodaa bag yidhi asoo bajaajti koru dayay ka kadibna wixii bajaajley beledka dhoobnaayo ciil dhuuntu go'needaa dhoongo'da soo naqday asay jidadki herti cad soo wada roogsadeen hadda buuqoora waa maqlayseen dooni mayno ayaa koo ku haaya war bajaajlaydu waxay lahaayeen maalinba mid intii nalaga dili lahaa hal maalin halna la wada laayo haddii kale ammaan hana la siiyo canshuuraan bixinaaye aryaadhaha guddoomiya yariisow bajaajlayda waa u tega waana la warramay oo wuxuu yidhi sargaalkii dembiga galay waa la yaqaanoo waxaa la yidhaa hebel ow yidhi gacantaana lagu soo dhigaa oo sharcigaa la marsiihaa ee bajaajleeyay raalli ahaadha oo isdejiya ma mayd baa war maqla ninku waa dhintay war guddoomiyuhu mayd lama hadline dhallinyaradii bannaanbaxaysay buu la hadlay waran hadal qubung meela ka oga kii wala hadlaay horti oo la kabiro amadaaska dambe leh hadalhaado fadaayana war guddoomiyuhu wuxuu yidhi ninka wax dila waxaan ka codsanaynaa inuu cadaaladda horteeda yimaado weligay dilaa codsi loo jeedinayo laleeyahay cadaaladda imow ee aqbalay ma aanan maqal mana arag guddoomiyuhu mar hore muxuu shabaab uga codsan waayey inay qaraxyada naga daayaan haddiiba dembiilo la codsanayo war haddii bajaajlayda ay bannaan baxday jidadki mana loo furay abow shibhaw geeka meelan foofaw ma laajidadeedii hiranyin gaari gacanka mankakiinka haraysinya ma argu hayto war jidadkii weli waa xidhan yihiin carruurtuna ma gartaanoo waa kuwa caanaha ooyaya dawladduna awooddeedii waa soo bandhigtoo magaaladii oo dhan ay jeebays guushiina taaka uma jirto waa u muuqataa waa intaasoo ilaahay qalbigooda ku rido dadka caadigaana u naxariista dembiilahana qabta war aan hele tasbiixdaadi sheegaasi jannile ka galee laakiin aykii la goradeehe horta nimayahabow shacabkii waa cabaadaa oo danihiisi meelow ka fushadow la'yahay dawladdina waa cabaadaysaa oo amnigii ku adkaadoy xasili laheed cadowgina waa cabaadaahoo qarixi meelow soo marshow la'yahayehow jidyaa jaardiina waa xiirteen jadiinkiina jaafow uu yaal jidyaa jaardiina waa xiirteen jadiinkiina jaafow uu yaal haye war dadkii markii jadiinkii laga xiray booray sumaysana dadkii la siiyey 30 qof ka badan ayaa isbitaalka la seexiyey war ma haysaane ra'iisul wasaare xasan cali khayre guddiga oo magacaaba ayaa shiray waxaa ka mid ah wasiirka ganacsiga wasiirka batroolka wasiirka kalluumaysiga wasiirka duulista hawada wasiiru dawlaha waxbarashada marka waxaan gara waayey kuwaasu meesha ay ammaan ku soo barteen aryaadhaha hadda ka hor jenaraal cumar xaaji masalle oo ah wasiirka gaashaandhigga waxaa laga dhiga wasiirka caafimaad aasoo wuxuu shiriya shaqaalihii wasaaradda oo dhan bugaasoo yidhi aniga waxaa lay soo baray inaad wax dilo idinkana waxaa laydi soo baray inaad wax badbaadisiin berigana anaa madax idiin ah ee wada shaqayn wacanuu yidhi marka hadda duulista hawada
ganacsiga iyo gulumaysiga miyaa amni loo xil saaray war waxaa la yidhi ninkii kaynta xaabada ka guray xooggana u waayey xoogaagana ku sii biirsadow tala xumaanta warnimayo war baan idiin hayaa waa markii u horraysay ee guddoomiye baarlamaan uu ogaado sak dhexe in xildhibaanada beri soo xaadiri doona aysan kooramkii dhammayn xalayna guddoomiyaha golaha shacabka farriin ayuu xildhibaanada u diray wuxuuna yidhi beri kooramka ma buuxsami doonee ha la iska joogo war maalintiin kooraytiyu dembiili gacanku dhiigle'e inoo cadaaladda horkooy lukoodsidii war saas maanayna dhegaysta waa markii ugu horraysay googlaa weriyi weyddiiyo inuu qarax dhici raba maanta iyo in kale aryaadhaha haddii golihii sacabka loo waayo kooram golihii safkaa la fura beriga guddoomiye cabdi xaashi cabdullaahina wuxuu yidhi golaha aqalka sare wuxuu ka shaqayn waaya golaha shacabka hadda lama golo aan wada shaqayn iyo golo aan gaar u shaqayn shacabku waxay ka korahayaan inay wax u qabtaan golo hoose iyo golo saroon golo dhaxalahayni maa walay wada shaqayn kareen war salaax cali jeelle wuxuu yidhi baarlamaan kala maanaa ka ah waddanka aryaa axmed dheerow warkaas amaad xiri ku mutaysataa ununku kulama qabnee cabdullow maxaad u wareeraysaa kooramkeennaan buuxsamayne war maanta golaha aqalka sare waxaa furay ra'iisul wasaare xasan cali khayre wuxuuna ka jeediyey khudbad u eg tii madaxweynuhu uu ka jeediyey furitaanka golaha shacabka senatarada aqalka sare qaarkoodna waxay ku doodayeen dastuurka kuma qorna in ra'iisul wasaare uu furo kalfadhiga baarlamaanka senatar iftiin baastana wuxuu yidhi madaxweynaha dastuurka ayuu ku xadgudbay ee hays casilo la fududa xilkan dhibka laga soo mara nimaan warkaahin wey haa runtaw nub 40 yoonay siyeesay embinaan bahaani walow una wayni ballanqaadyadii war aqalka sare nabadii nolol miyaa mise mucaarad waay armaday isaaqoo wax kale ma ogida shiinuhu waxay ku maahmaahaan muhim maaha haddaan ballanki maaha carabtuba waxay ku mahmaadaa feeri ganjeelo foorgad muran fariis qabqabsi faydhowrka maskaxda war maanta golaha abwaanadu furitaanka golaha aqalka sare ay ka hadleen intaasaan ku soo koobay ayaana sii badinaan ma dheheen war hayga dhex gelin warkii cabdidhuux yuusuf gabay ayuu tiriyey wuxuuna yidhaahday inta jidadku xidhan yihiin ummadduna jarriban tahay juguhuna dhacayaan haddaan dawladdu ka jawaabin gabaygan huuse soconaya meel xunun buuna aadaya warkaan aniga cabdulla xalay tirinabaa ka weyn jidadkaad la xidhi maayo tiri waagii lagu doortay inaan saaka mari weynay baa noogu yaab badane intaasaan ku soo koobaynaa ayaanan sii badin war ciidan kumaandoosa danab ee cirka ka soo daadan jiray maanta waa lugeeyeen sabiib iyo caanool iyo tuulooyin kaleo afgooda u dhow cagta ayay mariyeen weliba waxaa layidhi gacanna dadka ay ku gargaareen oo macaawino ay ku siinayeen gacanna waa ku dirireen oo waa ku difaacayeen war ciidanku hadday midigtana dadka ku gargaarayaan bidixdana qoriga ku wataan way fiican yihiin kuwaan jidadka xidhan taagan maxaa loo bari waayey inay masaakiinta iyo danyarta iyo dadka xanuunsan gudbiyaan war macallimiintooda kala fiican waryaa been ha sheegin ambalaasyaa lagu diyaariyey isgoysyada ciidamadu joogaan dadka xanuunsan say u qaadaan aryaadhaha maad war haysiin beriga madaxweynaha lay doorta anigaba ra'iisul wasaaraad ii magacawday maanta anna mooshin baan idinka keenay labadiinnaba aryaadhaha ha qaldamina beriga waa maalinti beenta adduunkay dhaheen aan wax banneeya ma aqaane war ilaahay ma binayna beenta iyo binaysadeen war qarnigaan oo dhan baa qarnigii beenta war siminaar tiiraanya bixin oo 2 maalmood socday ayuu shaatax soo gabagabeeyey maanta oo dadkii argagaxa iyo qaraxyada qalbiga uga dhaawacma lagu tiiraanya bixinay aryaa tiiraanya bixintiisa ma aqaanayow hadda tiiraanya cusub kugu abuurin adiga waryaa tuura ka soo baxday ninkaan tiiraanya ma abuurin naga amr soomaalida nabad allaha yeelo